saaka inaan garoonka wiilwaal iyo magaalada Jijjiga iyo deegaanka Soomaalida aan ku soo dhaweyno wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Itoobiya go'aansadeen inuu ay muhiim tahay mar haddii uu Itoobiya yimid in deegaankii Soomaalida oo si gaar ah aynu maaragtay wax soo siinahay inuu yimaado go'aansaday aadna ugu mahadsan go'aankaas inaan ku soo dhaweyno magaalada Jijjiga ra'iisul wasaare soo dhawow adiga iyo wafdiga kula socda intiinaba waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan inaad maaragtay wax badan ka fahmi doontaan xaaladda nololeed ee deegaanka iyo dalka Itoobiya guud ahaan iskaashigii inoo bilowday dhanka la dagaalanka argagixisada inaan sii xoojino kuna darno isdhexgal bulsho iyo mid dhaqaale inagoo ka faa'iideysanayna barnaamijkan guud ee regional integration loogu talagalay in bulshooyinkan dib u dhacay ee dalalkan jaarka ay geeska Afrika ay ka faa'iideystaan marka soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waa deegaankii adiga iyo waftiga kula socda waa deegaankiinii waxaan rajayn doonaa maaragtay in wada hadallo dheeraada iyo isdhexgal ka balaaran kan aad la yeelan doonto annaga iyo qaybaha kale ee bulshada si aan u sii xoojino walaalnimada labada dal iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo dalka aan jaarka nahay Soomaaliya waad mahadsantahay soo dhawow madaxweyne waan ku mahadcelinaynaa runtii soo dhaweynta adiga iyo xukuumadda iyo shacabka reer Jigjiga runtii waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha badan ee noo sameyseen annana waan ku faraxsanahay runtii inaan idin imaadno sidaad sheegtay waxaa naga dhexeeya runtii cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan innaga Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya guud ahaan gaar ahaanna deegaanka Soomaalida oo aan xuduud dheer runtii Soomaaliya ay leeyihiin waan ku faraxsanahay inaan isu imaano insha Allah waxaan xoojin doonaa waan ka wada hadli doonaa danaha waaweyn ee naga dhexeeya oo ay kow ka tahay la dagaalanka kooxaha dhibka badan oo runtii Soomaaliyana ragaadiyey idinkana aad nala aragteen runtii dhibkeeda waa ay dhaweyd waxaan rajaynaynaa insha Allah annagu aan dagaal adag oo aad u adag baan kula jirnaa waxaan rajaynaynaa in aan iska kaashan doono haddii la yiraahdo dagaalkaas sidii inta kalena insha Allah waxaan sii xoojin doonaa iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo dadka walaalaha isu socodkooda insha Allah in la sahlo waan runtii mar kale waan idinka mahadcelinaynaa waan arkaynaa insha Allah dadka iyo dowladdaba haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in aan ka faa'iidno socodkan iyo booqashadan aniga iyo wafdigaygu runtii Soomaaliyana iyo deegaankaba iyo guud ahaan regionkana ay wax fiican ku soo kordhin doonto dhinaca gaar ahaan amniga runtii oo ah meelaha ugu daran marka aad iyo aad madaxweyne u mahadsan tahay runtii waan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta mar kale shacabka iyo dowladdana waan mahadcelinayaa